ساكا يا رون هري يا درمان 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 كرنت واجوغا كرنت واقله كرنت واقله كرنت واقله بابور باهو دا دعدا دادو سو كاري يا بور صار بلسارم كرنت واقله كرنت واقله وبال كيوي ويندول كيوي قول كيوي سيتي magacaygu waa wariye Cabdifataax Maxamed Cabdi waxaan idin kala soo hadlayaa sohdimaha ku meel gaarka ah ee ciidamada militariga maamulka SSC Khaatumo ku sugan yihiin halkana waa sohdinta ama jiida Boqdarkayn oo saaka 10 subaxnimo laga soo bilaabo ilaa iyo hadda oo saacada Afrikada bari ku sii siqayso koodii duhurnimo dagaalo teel ay ka socdaan hadda waxaan idin ka dabageenayaa saaxiibayaal dagaaladaasi sida ay ku bilaabmeen iyo sida cadawga loo jabiyay ciidamada Somaliland iyo maleeshiya beeleedyadooda iskarabsanaya waxay isku dayeen in dooxadaas buurta galfay ee buurta goldheer dhinacna ka saaran inay soo galaan laakiin ciidamada militariga SSC oo dooxadaasi ay uga caagan tahay in gabaad ay cadawgu ka dhigto ayaa suug iyo sikaawo ku afufay ugu dambeynna wax ka yar 20 daqiiqo waxay sababtay in maleeshiyadii iyo maamulkii Hargeysa ay halkaasi isku dayay ama dooxadaasi isku dayay inay gabaad ka dhigtaan in dib looga saaro geesta kale halkan oo aan ku suganahay oo ah buurta Bisiqa ilaa iyo inta u dhaxaysa buurta Maraacabay balliga madaxweyne xoreed waxay maleeshiyada Somaliland ay isku dayday inay jidgooya ku sameeyso ciidamada laakiinse ciidamada militariga SSC oo markastaba la socda dhaqaaqa iyo dhagarta cadawga ayaa dhurbaxa kulul ku dhuftay kuwaasna wixii warar soo kordha halkan ayaad kala socon doontaan magacayguna waa Cabdifataax Maxamed Cabdi gumeedka waxa la yiraahdaa gumeedka marka nabadu joogto futadiisa irbadi ma mari karo markii rag sare oo xabadi dhacdana إن ترى يفتدي كل ورقة مصبح معناته إن ترى يفتدي كل ورقة بسم الله الرحمن الرحيم أنا جا أو مقعد ويا عبد الرزاق كورنيل عبد الرزاق هذا السمويني كانت ترسم جوتة شرية طبناد الدوفان كان صور وقاصي ساكا أن ماشي اللي هذا أجار كمراجع وحنو كسر مرني سي ليابله وحنو أسروا في الدفاعية دي أي لهاين ciidamada cadow waxay u fadhii waayeen rasaasta iyo qaabka ciidanku u galay dagaalka ilaa iyo waxaanu wadnay gooja cad ay ka galeen waanu kala baxnay hadda waxay marayaan in og ayay ku dhow yihiin waxaanu qabanay maxaabiis aad u fara badan qaybtood waxaanu u gudbinay gobolka Nugaal taliyihii guutada ka hadlay qalyare waxa la yeelay ma jiraan waxa weeye arintu sidaas u dhacday meeshan waa warshadii biyaha inta ay haysteen dhulkan ummadda waxay ku hayeen dhibaato aad u fara badan waxay ku leeyin jireen madaxduub boqolaal bay madaxduub ku dileen waxay duqayeen magaaladii wax yar baa magaalada ka taagan guryaheedii maatadii waa laayeen dumarkii waa xasuuqeen ciyaalkii والاين وبركعيه انت waxaanu lahayn hadaanu nahay beesha harti waxaanu lahayn allihiin haduu allayahay orda naga taga dhiigiin waa naga xaaraansan yahay naga baxa naga taga way diideen xalay buu dhacay go'aankii u dameeyay in muxuu ahaayay gacanta la isula tago nusaac bay qaadan weydeen nusaac ina isdifaacaan bay qaadan waayeen waxa la yiri marka inan gumeedka waxa la yiri inan gumeedka marka nabadu joogto futadiisa irbadi ma mari karo markii rag sare oo xabadi dhacdana in tare yaftadii ku kala wareega musabix maanta in tare yaftadii ku kala wareegay waxaanu u sheegaynaa inaan lagaga harayn inta xuduudda muxuu gobolka Sool iyo Cayn lagaga harimay inta hartidago lagaga harimay waxa weeye isaaq way ismahadiyeen ma garateen
laakiin waxaanu u sheegaynaa waxa aanu nahay haddaanu nahay beesha harti ama se daarood ama se Soomaali waa diideen inaanu tusayno waanu tusnay waxay yihiin dibna waa loo sii tusi doonaa ninka habar jecel ee lagu arko Boosaaso waa la qabanaya 20 nin maanta Boosaaso hadaan ku sugaya laag baan fadhiyaa maanta Soomaalika ina dhulkiina ceeriga wadada ka qabataa dadka soo socday ka yimaado burco warsangeliyow 2023 iyadoo dagaal harti iyo isaaq lagu jiro inaad nabad ku baaqdaan ceerigaabo baad samaysay waa kow nabadii aad ku baaqday maxaa ka faa'iideen maanta gawaadhidii raggiina waa laaf duubanaya oo waxa weeye gawaadhidii inta la kacaysto waa la jaraya markaas jawaab anu aan laahay 24 hours ay saddex nin oo warsangelaya ayaa maanta laaf duubtay shalaxay laaf duubtay dagaal baa lagu baaqay maanta colaad 10 sano socota habar jecloy dhulbaanta iska cili weyda habar jecloy dhulbaanta raggiina sida ariga u qabtay shoolad kala kulaasheen laakiin wallahi billahi oo tollahi dahabshiil soo meeda keen rag burco marayna qabsataan dahabshiil iyo ninka ceerig ninka reer Sheekh Isxaaq ama ninka habar jecel ee lagu arko Boosaaso waa la qabanaya 20 nin maanta Boosaaso hadaan ku sugaya laag baan fadhiyaa maanta Soomaalika ina dhulkiina ceeriga wadada ka qabataa dadka soo socday ka yimaado burco la billahi oo tollahi dahabshiil Boosaaso ma furaya dahabshiil Boosaaso ganacsiga gelaysa colaad hadda guuna aan la kala guursan oo caadiya oo la isku dhamaado bal lagu baaqaya maanta nacla hooyadii ku yaala gusbaa kaasad waxaad micin bideen dhalinyaro yar yara oo waxa weeye u socda ceerigaabo oo ka yimid Hargeysa ayaa jidka u gasheen santel baa laga jaraya wax walba laga jaraya qof walbo futaja inuu keerisa muhiimadu waa laakiin qofka soo futaja la deersay waa la gowracaya wallahi wa billahi oo tollahi shooladan idinka hadda kulaalay baashan hadda caadi baa qabiil caadi waa dhaftay la kala gursamay ganacsiga xitaa waxa weeye la kala waxay maay ganacsiga xitaa wallahi inaan loo isku kala marayn sababtoo ah waxa maqal jiray aabo ka yar iga celi oo ka weyn u sida war dhulbaanta waxa uu haysatay jaamac siyaad baa waxa uu haysatay waxa dad lahayd waxa uu haysatay jaamac siyaad baa ka qaatay dadkaagii reer daahir qabiil dhan baa hadda maxbuus aan ugu xiran waxa weeyaan la saanood qabiil dhan oo haba jecel ka reer daahir loo maxbuus aan ugu xiran la saanood markaas dawladda inay shawada isku kordhisan hadda gaariga waa aragtaan gaarigaas waa gaariga laga dhacay beesha warsangeli qorligud baa la geeyay mid kale waxa gaariga faaska lagu jaray faaska war dadkan inuu habar jecel hub la'aan baa haysa waa maxas laan gruusal ma galan karaan laan gruusal faas lagu jaray habar jecel ka hayna oo dhulbaanta belo ku dhigay waxa reerkii habar jecel dhulbaanta belo ku dhigay war xitaa lama sugin faas baa la dhacay gaariga qab faas baa la qorligud baa la geeyay ma laan gruusal baa ka celinay dhulbaante